kastoo hadda joogtid Mareykanka oo ah meel ay dad fara badan ku taamaan inay yimaadaan haddana intaadan Mareykanka iman ma sha Allah adii xaaska reerka Ilaahay ku daayay ku dhaafay fursado fara badan oo qaaradda Yurub ku tagtay baa jiray waa jiraan safar badan oo kale baa jira haye marka su'aashaydu waxaan u soo digay dam leeyahay waagaasi Soomaali fara badan dhagaha waxay kugu shubeen warniyow Yurub fiican Afrika ka raysanaysaa ay isdhiib oo macnaha hadda Soomaaliya Holland baa tagtay Sweden baa tagtay sideed waddan baa soo martay iska Yurub taasi aan su'aasha si toos ah kugu qarxiye saaxiibe waxaad isku dhiibi weys markaad Yurub joogtay horta niyahow arinta igu weyn aan isku dhiibi waayay calan qaran baan watay wakiil baad ahayd magaca waxaan ku baxay dalka sax passport-kan ku baxay oo kii dalku ahaa invitation ku baxay invitation wadankii wuxuu ahaa oo official macnaha nidaam dawli oo nin qaran matalaya baan ahaa sax daway cuntin weyd anigoo calanka babanaya matalaya laakiin sidaan ogahay rag kula socday horta badan waa la tashkiiliyo qasab hareeraha laga galaya hareeraha laga galo way isdiibeen dhowr jeer baa horta waa isuu ka tagay laakiin ka badan biyo ka badan naam si wanaagsan deetana ninaan saaxiibnahay oo Muqdisho joogan wacay sax aad saaxiibnahay deetana ka hor yaa saaxiib meeshin yahow erkaas la isku duwanaya haye deesaas la dabayacayaan yahow maxaa aqliya maxaa tala ah marka nin Ismaaciil la saaxiibanahay la socdo Maxamed iska raacay sax marka Ismaaciil iska digan wuxuu ahaa media soo dhex gali jirin si wanaagsan markaan shawiirada dhigano wal baxsan jirnay meelaha soo iska tagi jirnay jooga degan si wanaagsan kubaddaasna ciyaari jirnay dadana ninkii aan saaxiibada ahayn xamar joogay markaas uu adiga garashada waba hadal koobanba oo mugle waa adiga garashada ama isdhiib ama soo anigoo sidii kale u saluugsanaa dadkan xaaladan ay ku jiraan iyo kala yaacan iyo noloshan yar iska cakiran dad wadankii marka joogay nima fasaxaystayaal oo shaqeysanayo qurux badan baan ahayn sax dadkiina ku dhex jira qaraabo salaan saaxiib asxaab leh laakiin halka markaan tagay waan hal mar baa waxaan noqday qof macnaha xabsi ku jiro oo kale laakiin way cunto muuday xaaladda kale markay ku soo biirteen ninkan saaxiibadan la hadlay sax wiigeed waa adiga garashada maalintaas aan tikid soo bedeshay laakiin markaad timid waxaad ka timid Afrika waxaad timid wadamo horumarsan tareeno diyaarado adduun nolol yaro macaan miyaysan dareenkaasi adan fiira tashkiilinooda isleeyin niyo horta waa aad buu niyad jabayo dad tashaday oo shaqeysto dhulkooda qurxistay markaan arkay sax iyo xaaladda dadkaagi ku sugan isku qaban weeyay Soomaalida aan qurbaha ugu tagayna dhowr arrimood baa jiray oo saluugay ama noloshooda ha noqoto ama sida ay isku jaminayaan ha noqoto xaalado badan oo ay cuntin waay baa jiray sax saasay u kaliftay inaan